dood iyo falanqayn dheer kadib waxaa shirweynaha u muuqatay uuna halkan ka soo jeedinayaa kow in khilaafka dhaqanka ee muddada 4 sano ah soo jiitamayay si dhaqso ah loo xalliyo labo in magaalada Garbaharey lagu qabto wajiga labaad ee shirweynaha midnimo labo oo ay wada tashi isugu imaanayaan ergooyinka kala socda beelaha wada deegaanada Jubba saddex in dawladdu ay si siman u wada gaarsiiso adeegga bulsho dhammaan gobollada dalka gaar ahaan gobolka Gedo oo haba yaraatee aan wax adeeg dawladeed ahi ka jirin afar in deeqaha dawladda dhexe soo gaara si cadaalad ah loogu qaybsho loona gaarsiiyo gobollada dalka si toos ahna qaybta gobolka Gedo ku soo qodobka lixaad dadka doolow laga qaaday inaysan ahayn dad beesha matala oo tala ku tagin aysanna qayaarkood ku tagin faragelin iyo cadaadis shisheeye ayaa ku riixay in ay Kismaayo tagaan qodobka toddobaad waxaa nasiib darro ah hadalkii uu jeediyey Danjire Maxamed Cabdi Afey in uu yahay mid xaqiiqada ka fog oo marin habaabinayo beesha caalamka shirweynaha midnimo ee Garbaharey oo si buuxda u danaynaya deganaanshaha nabad wada noolaanshaha iyo horumarka dadweynaha ku nool gobollada Jubba waxa uu ku baaqayaa in dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya la timaado siyaasad cad oo ku wajahan xal u helidda xaaladda gobollada Jubba ayna si buuxda dhexdhexaad ugu noqoto khilaafka ka jira gobollada Jubba b in madaxweyne Xasan Sheekh uu si cad raaligelin ugu baxsho sida tooska ah ee uu ugu tuntay dastuurka dalka iyo ammaanadii dadweynaha gobollada Jubba kadib markii uu ku dhawaaqay in Axmed Madoobe uu yahay madaxweyne c in dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan ururada ilaaliya xuquuqda aadanaha si dhaqso leh u qabtaan guddi wadajir ah oo si buuxda u baara tacadiyada loo geystay dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo d maadaama uusan jirin hoggaan iyo maamul la isku waafaqsan yahay oo ka dhexeeya gobollada Jubba waxaan si buuxda ugu sheegaynaa dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka in gobolka Gedo uusan hoos imaan kooxda raaskambooni ee Axmed Madoobe sidaas darteedna aysan kooxdani ku matali karin gobolkan madasha siyaasadda iyo horumarka looga hadlayo